waxa magaalada Paris lagu soo gabagabeeyay bixitaanka abaalmarinta laacibka kubadda cagta ee ragga iyo dumarka sanadka 2023 waxa lagu qiimeeyaa saameynta ciyaartoyga ka keeno qarankiisa iyo kooxdiisa haday noqoto ciyaaraha ugu culus sida Champions League iyo Domestic Cup. Haddaba waxa kaalin fiican oo muuqata ka keenay sanadkan laacibinta kala ah Messi oo wacdaro ka dhigay koobkii adduunka ee sanadkii tagay lagu qabtay dalka Qatar, iyo Mbappe oo qarankiisa ku hogaaminayay finalka koobka adduunka, iyo sidoo kale Haaland oo natiijo muuqata ka keenay ciyaaraha horyaalada iyo kuwa Champions League isagoo hal sano qaaday 3 koob oo dheelayna goolal khayrul aadi ah. Haddaba waxa markii sideedad dhaqta qabsaday bilada laacibka adduunka mucjisada gaaban ee Lionel Messi, waxaana laba noqday Haaland, sidoo kale waxa kaalinta saddexaad galay Mbappe, halka Sheikhi Salah ahaa yimid kaalinta 11aad, waxaana la husayay ilaa kaalinta 3aad. muuqaalkana maanta waa naga intaas, balse haddaad nagu cusub tahay subscribe dhagan balaalkana furo.